السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما waxaan salaamayaa ardayda qiimaha badan ee ku xiran channelka Mustafa Ciraaqi. Inshallah muuqaalkeena maanta waxaan insha Allah taala isku dayi doonaa ka shaqeyno imtixaanka billaha ah ee luqadda Carabiga ee laga qaado ardayda dhigata dugsiyada Nuurdiin. kulli ardayda waxaan yara baraarujin lahaa waxaa jirtani ardaydu markii imtixaanka galaan dee way yar khalkhalaano waxaa laga yaabaa in su'aalaha ay ku bilaabaan ka shaqeyntiisa laakiin waxa ka qurux badan horta buugga ugu horeeya maaragtaa ay ku qoran tahay tanbiihaad baraarujinadaas inaad si fiican u akhriso waayo waxaa laga yaabaa imtixaanka inuu wax ka yara maqnaado beesh inuu ka maqnaado kadibna waxaa laga yaabaa beeshkan kaa maqnaa inaad imtixaankaad ku weyso markiisiisa markasta waxaad akhrisataa baraarujinta ee ku qoran buugga koobaad. waxaa kamid ah hada الامتحان يحتوي على 7 صفحات مع صفحة الغلاف. امتحانك marka la isku daro مع كفرka oo 7. تأكد من عدد صفحات الامتحان فإن كان فيها نقص فبلغ المراقبة فورا. امتحانك xaashirihiisu haday wax ka yaraadaan toos waa in muraaqibka aad u sheegtaa. يمنع استخدام القلم الأحمر والقلم الرصاص. qalinka cas iyo qalinka bensalka ardayda iska ilaaliya labadaba lama ogola. casaanka oo macalinkunba loo ogol yahay rasaas ama bensalkana waxa dhici karta ardayga tusaale ahaan su'aal qaldan hadduu macalinka ka balaas gareeyo inuu su'aasha intuu dib ka soo shaqeeyo oo buluug uu ku qoro kadib imtixaanka macalinka ayuu la murmayaayo wuxuu ka oranayaa macalin jawaabtu way saxsaneyd. sida murankaas laga baxo ardayga fadlan waa inaad ka shaqeysaa qalinkaaga biirooga ah. يعتبر هذا الامتحان 20 للصفوف الأولى والثانية والثالث و100% للصف الرابع. arrintaas waxay khusaysaa galaas fanfoor imtixaanka fanfoorka daa'ima waa 100% laakiinse galaasyada hoose waa 20% weeyaan imtixaanka billaha. pageka ugu horeeya horta waa qidcad oo su'aalaha ku xigta casharka ku xiga su'aalahaasi waxaad ka soo saaraysaa qidcada. سؤال كوبات هل لنا دور في حياتنا؟ نولشنا واحد دور يوح قبض ميان كلنا هي جوابته نعم لنا دور في حياتنا كلنا. هل تعطينا طبيعة الحياة شيء بدون مقابل؟ نولش ميان نسي سواح بلاش هم يكون سينسا قول بلاش ما تهريسا. جوابته لا تعطينا طبيعة الحياة شيء بدون مقابل نولش نمسيسو شيء بلاش. مما يحذرنا الكاتب في هذه القطعة قطعة مع 10 كان ku qoran beeshka koobaad maxay talow gabayaagu inaga digaya gabayaagu qoraagu wuxuu inaga digaya min ictimaad ala xad inaan nasiibka inaan ictimaadno ama cuskano oo nolosha guusha nasiib laguma hele dadaal baa lagu helaa. ماذا يستفيد الإنسان من فشل؟ سؤال فرعد بني آدم محو كفائدة يسأل قلت الرئيسة. يستفيد الإنسان من فشل أنه يتعلم منها مواطن ضعفه فيقويها وحوغانيا ويكنس كيسا ميلو كليتو كدب له وحوشينيا. هل استطاع الرجال الكبار أن يغيروا العالم؟ رقي ووينا قيمها بضنا مي أودين إن عالم كبدلان. جوابها نعمها استطاعوا ذلك الرنتاسي ويأسرتو قوشي. كيف رد الكاتب قراغو محوكا شوابي على من يقول عدي له أن الحياة بحر وأن الناس كأخشام تتقذفهم أمواج هذا البحر. نورش وبدو تدك وحي لمديهم لوحان أي درباحيسو موجودها بدو أي درباحيسو وماشي دو تكتو ريسو. وحكيت شوابي يحذركم أن تكونوا في أعمالكم دون متحركة. waxay naga digaya acmaashiina inaad ku noqotaan sida caruusado la dhaqdhaqaajiyo oo kale duma mutaxarika. caruusado wada aragtay ma dhaqdhaqaaqda qofka marka la dhaqaajiyo mu dhaqaaqaysa la ruuxa fiiha wala xayaa oo caruusadahaasi ruuxna ma laha nolol male faqofku inuu noqdo si caruusada oo kale ma aha waa inuu qof noqdaa. على ماذا يعتمد النجاح والفشل أو الفشل؟ guusha iyo guuldarrada maxay ku cuskanaysaa ama اعتمادا يعتمد على ما يبذل من الجهد wuxuu ku xiran tahay dadaalka kolba la bixiyo. سؤال سديداد من أين جاءت الأعمال العظيمة التي رفعت من شأن الإنسانية؟ أعماشني واوين كور أقاضي الرنتا بني آدم لماذا؟ حقيقة ماضي أما السديدي أتمي جاءت نتيجة سلسلة من الجهود الدائمة وحي كدب التميد
silsilad taxana joogto oo min aljuhuudi daa'imati ee dadaalada joogtada dadaalada marka la joogteeyo ay acmaasha waaweyn imanaysaa. هل تعتقد مياد آمنسنت أن العزم والجد والمثابرة الجوانكا يدلالكو إنه من أسباب النجاح بعد توفيق من الله وأسبابتا لقوه لي كرقوشا مركا لقي ما دو توفيق دا إلهي سبحانه وتعالى جوات والنعم أعتقد ذلك أرنتا سوى الآمنسنة إلى أي مستوى وصل هؤلاء الرجال حياة العالم رقاسي نولش ضدك حقيبي قارسيين كيف استطاع ويهي